waxaa hubaal ah geemkan inay ciyaareen qaar badan oo inaga mid ah. geemkan oo ah cunug yar oo derbi ku buufinaya rinji oo weeryanaya askari, kadibna uu ku dhex cararayo waddada tareenka, urursanayana kooynisyo. marka uu ku dhaco tareenkana uu dhammaanaya geemku. sidaasi waa sida uu yahay geemku. waxaa jirta qiso xanuun badan oo ka dambaysa geemkan. waxaa jiray wiil yar oo la odhan jiray Peter. wuxuu la nooraa hooyadii iyo aabbihiis, wuxuuna taalantii u lahaa wax sawiridda. wuxuuna wax ku sawiri jiray rinjiga lagu buufiyo derbiyada, laakiin aabbihiis ayaa aad uga soo horjeeday arrintaas. wuxuuna ahaa mid mar kasta ku canaanta oo u diida wax sawiridda, laakiin wiilka ma joojin jirin inuu wax. xafladda sanad guurada oo ka dhacaysa iskuulkiisa ayuu mid ka mida derbiyada ku sawiray sawir aad u qurux badan. kadibna maamulaha ayaa aabbihii soo wacay. kadib markuu aabbihii yimi, waxa uu maamulaha ka raaligeliyey wuxuu wiilkiisu sameeyey, waxaana uu yidhi, anaa rinji marinaya maamule ee ka raali noqo. maamulihii ayaa yidhi maya, waxa uu sawiray sawir aad u qurux badan, weliba isagoo aan loo oggolayn inuu wax sawiro. bal ka waran sidee buu noqon lahaa haddii lagu gacan qabto arrintan? kadibna aabbaha ayaa aad ugu farxay arrinkii, waxaana uu go'aansaday inuu wiilkiisa ku gacan qabto. waxaana uu u baneeyey hool weyn oo uu ku yidhaahday, aabba ku sawir waxaad rabto, kadibna ii yeedh, aniga ayaa rinji kaaga buufinaya. wiilka yar marka uu iskuul ka soo baxo, waxa uu aabbihii ku sugi jiray boosteejada tareenka. maalin maalmaha ka mid a, isagoo wiilku ku sugaya aabbihiis boosteejada tareenka, ayaa wuxuu go'aansaday inuu mid ka mida derbiyada boosteejada ku sawiro sawir. kadib waxaa arkay askari. wiilkii aad ayuu u naxay, wuuna ka cararay askarigii. askarigii iyo eygiisiina waxay bilaabeen inay caydhsadaan. isagoo ka cararaya askariga iyo eygiisa ayaa wuxuu ku dhacay tareen. halkaasi ayuu ku dhintay wiilkii yaraa. aabbihii wiilka yar ayaa yimaaday goobta. askarigii ayaa u sheegay inuu wiilkii yaraa dhintay. aabbihii ayaa aad u naxay. wuxuu u shaqayn jiray shirkad samaysa geemamka. wuxuu go'aansaday si wiilkiisa mar kasta loo xasuusto inuu ka sameeyo geem. kadib waxa uu keenay fikradda geemka Subway Surfer.